mar labaad baan kuu mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saako ila hadla ma qarinayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaan uu yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabaya ballanqaadkii uu hore ugu sameeyay ehelada askarta Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea ee ku aadanaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed u helaan xogaha ku gadaaman askartaasi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay qaar ka mid ah waalidiinta askartan oo la wadaagay warbixin ku saabsan xaaladahooda nololeed iyo caafimaad. raalli ahaada kun jeer raalli ahaada waa ka xunnahay xanuunka iyo tiraanyada waa garan karaa waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyaan xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahaa weliba markaan ka warhayn waalidku waxaa la yidhahaa ilmihiis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waalidiinta uga mahad celiyay sabarkooda muddadii ay la'aayeen xogta ubadkooda ayaa u sheegay inuu faray saraakiisha maamusha xarumaha lagu tababaro askarta inay sida ugu dhaqsaha badan uga shaqeeyaan sidii askartani ula xiriiri lahaayeen eheladooda madaxweynaha ayaana tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in dalka dhawaan dib loogu soo celiyo askartan Soomaaliyeed anaa idin yeeray oo iri bal waalidiinta la igu yeer meeshaan tagay de sawirada qaarkood isaga ku aragteen wiilasha waa soo arkay ciidii maanta labaad oo ciidda maanta kood halkaan aan ka tagnay maanta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ah nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaan oo soo reebay maanta ama birri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan qaar ka mid ah ehelada askarta Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea ee kulankan ka qayb galay ayaa madaxweynaha la wadaagay duruufaha ay wajaheen muddadii ay ku jireen baadigoobka ubadkooda waxayna uga mahad celiyeen madaxweynaha sida uu mas'uuliyadda gaarka ah isaga saaray in la helo xogta ku gadaaman askarta Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea madaxweynaha raxmad iyo damiir dadnimo oo Ilaahay qalbigiisa uu geliyay ayuu noogu jilcay